kulankan oo ah mid soo qabanqaabisa wasaaradda haweenka iyo xaqul-insaanka Galmudug ayna ka qayb galeen haween mataliya ururada bulshada rayidka ee deegaanada Galmudug laguna la fuguriyay qoondada haweenka ee 30% ee doorashada soo socota ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka suxufiyiin iyo hay'adaha ammaanka dawladda federaalka ee kuwa Galmudug ubax Ismaan Dhiblaawi oo ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo xaqul-insaanka Galmudug oo furitaanka shirkan qodobada ka jeedisay ayaa sheegtay in wax badan oo lagu dhibanaa xal loo heli doono isla markaasna haweenka ay ka faa'iideysan doonaan fursadda ah in haystaan 30% ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Meetingkan maanta wuxuu ku saabsan yahay oo ah in dad qaas ah loo tababaro wasaaradda ururada bulshada ururada haweenka oo tababarkaasna uu ku saabsan yahay doorashada markay bilaabato insha Allah wixii haweenku wax loogu dhimaayo ama gees loogu riixaayo ama lagu cadaadinayo haddaa aragtaan insha Allah inaa u soo gudbisaan wasaaradda waxaa jiro telefoon oo hotline ah oo wasaaradda haweenka ee federaalka ay sameeyeen iyo website oo la dhahayo Marwa labadaas meelood xogta lagu aruurinayaa informationkaas insha Allah waa idin soo wadaagaynaa marka taas waxay ka taagan tahay in aad idinka tihiin dhagihii iyo indhihii banaanka markay marayeen hadda artiin gabar tartamayso oo albaabka inay gasho loo diido ama la cadaadinayo ama si kale loo garbinayo inaa insha Allah aad wacdaan oo dhahdaan waxaasaan aragnay saasayna u dhacday marka waxaa laydin tababarayaa inaad noqotiin waardiyaashii gabdhaha doorashada galaya iyo doorashada meelaha ka dhacaysa iyo macluumaadkii aad aragtaan oo lagu riixayo gabar insha Allah inaad soo gudbisaan maadaama kulligeen aan haweenahay una dagaalamayna kootada haweenka rag iyo dumarba kootada la sheegayo waa shaqo qayb ka mid aan dalbanay oo leenahay 70% shaqada adinka qaata laakiin 30% anagana siiya wax kala ma ahan marka shaqadii umada loo shaqeynayo baarlamaanka lagu aaday ama senatarka bay ku saabsan tahay marka shirka waa noo furan yahay wasaaradda haweenka iyo xaqul-insaanka Galmudug ayaa maamul la soo dhaafay kulamo noocan ah ka waday deegaano badan oo ka tirsan Galmudug Xasan Axmed Maxamed Hirshabelle TV Galmudug